Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka daruuraha. Maanta oo kale 40 sannadood ka hor oo ku beegnayd 22 Sebtembar 1980 waxaa qarxay dagaalkii cuslaa ee aan waxba la iskula harin ee dhex maray labada waddan ee deriska ah ee Ciraaq iyo Iiraan. Dagaalkaas oo socday muddo 8 sannadood oo kaamil ah, isagoo soo gabagaboobay 20 Agoosto 1988. Inta aanan gudagelin warbixintan, fadlan haddii aadan horey like u saarin boggeena Facebook, waxaan kaa codsanaynaa inaad haatan saarto, siina share garayso muuqaalkan. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barteena youtube.com/daruuraha. Waxay ila tahay inaysan Soomaali u baahnayn in loo sharaxo ereyga dagaal, maadaama ay Soomaalidu ku mahmaahdo dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta. Waa mid aan ka dheragsannahay oo aan ku soo jirnay boqolaal iyo kumanaan sano, ama halka ugu fudud haddaan ka soo qabanno xilligii gumaystihii iyo markii aan xorriyadda qaadanay ilaa maanta. Waxa ay Soomaaliya ku jirtaa dagaallo goosgoos ah. Waxaa dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan lagu tilmaamaa kii ugu dheeraa uguna dhimashada badnaa qarnigii 20aad ee la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxa uu ahaa dagaal bedelay wejigii Ciraaq iyo mandiqada Khaliijka, waayo dagaalkaasi wuxuu ku soo beegmay xilli uu Saddam Hussein uu Ciraaq maamulayay muddo sannad iyo 2 bilood ah oo keliya, isagoo xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee Ciraaq Ahmed Xasan al-Bakr oo uu u ahaa madaxweyne ku-xigeen. Waxaana Saddam oo si hoose awoodo badan kagala wareegay madaxweyne Ahmed Xasan al-Bakr uu si toosa isugu magacaabay hogaamiyaha Ciraaq 16 Julaay 1979. Dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan waxaa gudaha Ciraaq looga yaqaanaa Qaadisiyatu Saddam, oo loola jeedo sida dagaalkii Qaadisiya ee dhex maray asxaabtii nebiga ee uu hogaaminayay Sacad bin Abi Waqaas, Allah ka raali noqdee, iyo boqortooyadii Farisiyiinta ee uu horkacayay boqorkii Rustum Farqazaad. Dagaalkaas oo dhacay sanadkii 636 miilaadiyada, guushuna ay ku raacday muslimiinta oo furtay Iiraan ama Faris, isla markaana dilay boqor Rustum, halka Iiraanna dagaalkii Ciraaq ay u yaqaanaan ad-difaac al-muqaddas, wax iska caabinta muqaddaska ah. Waxaa jirta xilli ay Soomaalidu aad u adeegsan jirtay oraahda dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan, sida marka ay 2 qof mar walba isdagaalaan waxaa lagu oran jiray, niman yahow dagaalkiinu ma dhammaado miya, ma kii Ciraaq iyo Iiraanba. Dagaalkani wuxuu ahaa mid labada dhinac ay ismari waayeen. Walow markii hore dhulal laga qabsaday Iiraan, haddana waxay dib u soo ceshadeen dhulalkii lagala wareegay. Dad gaaraya ilaa 1 milyan ayaa ku dhintay dagaalkaasi, halka ay ku khasaartay lacag ku dhow 400 oo bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Haddaba maxaa sababay dagaalkaasi lagu hoobtay? Dagaalkan ayaa wuxuu ku bilowday khilaaf dhanka xuduudda ah oo isku afgaran waayeen labada waddan ee shidaalka soo saara ee Ciraaq iyo Iiraan, gaar ahaan heshiiskii dhanka xuduudda ahaa ee labadan dal ee deriska ah ay ku kala saxiixdeen waddanka Algeria sanadkii 1975. Heshiiskaas oo loo yaqaanay Déclaration d'Alger ama heshiiskii Algeria, waxaana heshiiskaasi oo rajo weyn laga qabay uu ku dhammaaday is-afgaranwaa. Waxay arrintu faraha ka baxday markii madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein uu heshiiskii Algeria ku tilmaamay waxba kama jiraan. Heshiiskaas oo dhigayay in labada dal ay kala qaybsadaan webiga Shat al-Carab. Saddam oo ahaa nin daran ayaa sheegay in webiga Shat al-Carab uu yahay webi Carbeed oo ay Ciraaq leedahay, isagoo sidoo kalena ugu baaqay Iiraan inay faraha kala baxdo 3 jasiiradood oo istiraatiiji ah oo ku yaala marinka Hormuz. Haddii aan eegno webigan ay dartiis isku dagaaleen Ciraaq iyo Iiraan, ayaa waxaa dhererkiisu uu gaarayaa 200 kiiloomitir, waxaana uu ku dhammaadaa oo uu biyaha ku daraa gacanka Khaliijka. 10 Nofembar 1980, Ciraaq ayaa dagaalkii Iiraan ka gaartay guulo isdaba joog ahaa, waxayna qabsadeen magaalada Khorramshahr ee waddanka Iiraan. Bishii Sebtembar 1981, Iiraan ayaa soo rogaal celisay iyadoo go'doonka ka qaaday magaaladeeda Abadan, taasoo ku qasabtay Ciraaqiyiintii inay u durkaan dhanka webiga Qaaruun ee isla Iiraan.
2 bilood kadib waxaa ciidamadii Iiraan ay weerar wax iska caabin ah ku qaadeen ciidamadii Ciraaq ee ku sugnaa magaalada Ahwaaz ee waqooyi galbeed ee waddanka Iiraan. Hadda ogow aagga la isku haystaa waa dhul Iiraan. Sanadkii 1983 waxaa ciidamadii Iiraan ay jabiyeen Ciraaqiyiintii ku sugnaa magaalooyinka Dezful iyo Shush ee ka tirsan waddanka Iiraan, waxaana kadib ay Iiraaniyiintu sii wadeen weeraradoodii ilaa markii dambe ay Ciraaq ka soo ceshadeen magaalada Khorramshahr. Wixii la isweeraraba bishii Juun 1982 waxaa Iiraan ay soo ceshatay dhammaan dhulalkii ay Ciraaqiyiintu ka qabsadeen, waxaana labada dhinac ay bishii Maars 1984 weeraradoodii u bedeleen dhanka bartilmaameedsiga maraakiibta shidaalka qaada, waxaana labada waddan ay iska gubeen maraakiib dhowr ah. December 1985 Iiraan ayaa mar kale weerar cusub ku soo qaaday webiga Shatt al-Carab ee ku yaala xuduudda, iyadoo kadibna sanadkii 1988 uu hogaamiyihii Iiraan al-Khomeini aqbalay wadahadallo xabad joojin ahaa, waxaana labada dhinac waa Ciraaq iyo Iiraan ay isku afgarteen bishii Agoosto 1988 in si rasmi ah loo soo afjaro colaaddii soo jiitamaysay 8 sannadood. Isla bishaasi Agoosto 20keedii 1988 waxaa Golaha Qaramada Midoobay uu ku dhawaaqay go'aan tirsigiisu ahaa 598 kaas oo tilmaamayay in dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan uu soo afjarmay, labada darafna ay aqbaleen in dagaalka halkaa lagu ekeeyo, walow UN-ku ay gardaradii dagaalkaasi dusha u saareen waddanka Ciraaq, waxaana sidaasi ku dhammaaday dagaalkii taariikhiga ahaa ee Ciraaq iyo Iiraan oo maanta laga joogo sanad guuradii 40aad. daruuraha